asalaamu calaykum. Imbaraadooriyadii Mongolia taariikhda inta la hayo imbaraadooriyadii dhul isku xiran ka talisatay ugu weyneyd waa argagixii ugu weynaa ee soo mara Eurasia. waa natiijooyinkii ka dhashay midowgii qabaa'ilka Mongolia. dhalashada dhabta ee imbaraadooriyadaas waxay ahayd 1206 miilaadi markii uu Genghis Khan isu magacaabay hogaamiyaha qabaa'ilka Mongolia. Tataarka ama Maqulka waxay ka soo jeedaan waddanka maanta loo yaqaan Mongolia oo ah dawlad xiran oo dhacday inta u dhaxaysa Ruushka iyo Shiinaha. dhanka galbeedka waxaa ka saaran waddanka Kazakhstan. inkastoo Tataarka Mongolia qabsadeen dhul aad u ballaaran kadib dhisidii Genghis Khan imbaraadooriyadda Maqulka, laakiin maanta Mongolia waa dhul bad ahaan weyn laakiin ay ku nool yihiin kaliya 2 milyan iyo wax yar. waana dal faqiira oo aan dhaqaale ahaan wanaagsanayn. wixii ka horreeyay 1206 miilaadi qabaa'ilka Mongolia waxay ahayn reer miyi xoolo dhaqataa oo aan wax xadaarad lahayn, qabiilna isu cuno. laakiin taariikhdaas ninka lagu magacaabo Temujin ayaa isu magacaabay hogaamiye mid ka mid ah qabaa'ilka Mongolia, kadibna wuxuu seefta u siibtay qabaa'ilkii kale islaynayay. kadibna kala bar ayuu seeftii mariyay, intii soo hortayna wuu mideeyay, wuxuuna ka soo saaray dad midaysan asagoo dhisay ciidan aanan la hor istaagi karin. waxaan diyaar u ahay inaan laayo kala bar shacabka Mongolia si loo toosiyo barka soo haray Genghis Khan. kadib duulaanada Mongoolka ee lagu shiiday malaayiin shucuuba dhulka ay ka talinayeen wuxuu daadsanaa inta u dhaxaysa webiga Danube ee Yurub ilaa badda Japan, sidoo kale dhanka waqooyi magaalada Novgorod xuduudka Ruushka iyo Finland, dhanka koonfureedna ilaa Cambodia. dhulka ay qabsadeen Tataarka dadka ku nool waxaa lagu qiyaasay 100 milyan oo qof. badka guud ee imbaraadooriyadda Mongoolka wuxuu ahaa 33 milyan kiiloomitir square. waa dhulka weyn qaaradda Afrika oo dhan oo ah qaaradda labaad ee caalamka ugu weyn. 22% dhulka xilligaas wuxuu ku jiray gacantii Tataarka. maadaama aan xalaqadan ugu magac darnay duulaanadii Mongoolka ee caalamka, waxaan halkan ku soo gudbinaynaa duulaanada Tataarka ee caalamka iyo taariikho muhiim ah ku saabsan Tataarka Mongolia. 1206 miilaadi Temujin wuxuu gacanta ku dhigay xukunka Mongolia, wuxuuna isu magacaabay Genghis Khan oo micnaheedu yahay boqorka boqorada. 1207 Genghis Khan wuxuu duulaan ku qaaday Shiinaha, gaar ahaan dowladdii Shiinaha galbeed ee ka talinaysay dhul baaxad leh oo dhaco waqooyi galbeed Shiinaha iyo dooxada Tibet. 3 sano oo dagaal ah Genghis Khan wuxuu ku guuleystay inuu dhulka dhigo dowladdaas, kadibna wuxuu cagta sii mariyay Turkida iyo Goorka oo maanta loo yaqaan East Turkestan oo ah dad muslimiin ah, Shiinuhuna xoog ku haysto. 1211 ciidanka Genghis Khan wuxuu ka gudbay saxaraha Gobi, ujeedkuna wuxuu ahaa qabsashada boqortooyadii Jin ee ka talin jirtay waqooyiga Shiinaha, waxaana u suurtagalay in uu burburiyo dhulka boqortooyadaasna ku soo daro dowladdiisa. 1219 suldaan muslim ah oo lagu magacaabo Muhammad Shah Khawarizmi ayaa dilay ergey ka socda Mongoolka oo ugu baaqay boqorka inuu isdhiibo. dilka ergeygaas ayaa soo dedejiyay in Genghis Khan ciidamadiisa u wajaho dhanka galbeedka Aasiyada dhexe. 1219 ciidanka Tataarka wuxuu ka gudbay webiga Siixoon, waana bilowgii duulaanka Tataarka ee dhulka Aasiyada dhexe, waana duulaanadii ugu horreeyay ee Tataarku ku qaadaan dhulka muslimiinta. 1223 ciidanka Tataarka iyo kan Ruushka waxay foodo isku dareen webiga Kalka. natiijada dagaalku wuxuu ahaa burburinta ciidanka Ruushka. hogaamiye Mongool oo lagu magacaabo Soboto ayaa mas'uul ka ah gumaadka ciidanka Ruushka ee dagaalka webiga Kalka. kadib dagaalkaas ciidanka Ruushka sida xun loogu riiqay, waxaa xigay gulf adag oo Tataarku ku qaadaan Ruushka. 200,000 ciidan Tataara ayaa afka saaray dhulka baaxadda weyn ee Ruushka. magaalooyinka Ruushkuna waxay noqdeen tusbax go'ay. Tataarku waa dad cawaan ah oo aan wax xadaarada lahayn, wixii ka hor yimaada haddii ay yihiin dad way dili jireen, magaalana dab ayay qabadsiin jireen. 3 qarni waa 300 sano ayuu Ruushku raacsanaa xukunka Mongoolka kuna jiray gacantooda. 1240 magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine waxay ahayd mid haawanayso oo bililiqadu socoto kadib markii dabaysha uu xariiqday ee Mongoolku sii martay. isla sanadkaas xilli ciidamada Mongoolka ruugayeen Yurubta bari, dhanka kale waxaa socday guluf adag oo ka dhana jasiiradu aka Kuuriya bariga caalamka. gacanta ayay mariyeen Tataarku Kuuriya. 1241 ciidanka Tataarku wuxuu si xun u gumaaday ciidamadii Hungary Croatia dagaalkii Saajo, halka ciidamada Poland kuwa fardoolayda Haykal ay ku riiqmeen dagaalkii Lignista. gulufka Tataarka ee bariga Yurub wuxuu keenay in Tataarku qabsadaan deegaanada Qowqaas Yurubta bari ilaa waqooyiga Finland ee Scandinavianka.
1241 ilaa 42 tataarku wuxuu qabsaday bulgaariya wuxuuna ku qasbay in si sanadla ay jizye u siiyaan mongoolka lacag sanadkii ay bixiyaan 1258 hoolaako oo ahaa hogaamiye mongool naxariis daran dhiigga dadkana cabo ayaa galay magaalada baqdaad caasimadii khilaafadii cabbaasiyiinta wuxuuna ka geystay xasuuq aanan horey loo arag waxaa la dhihi karaa 90% dadkii magaalada waa la xasuuqay heer webiyada midabkoodu isbedelo tataarku waxay gowraceen khaliifkii khilaafada cabbaasiyiinta almuctasim billaah asaga iyo raggii khilaafada oo dhan baqdaad gudaheeda ayaa lagu gowracay intaas kadib hoolaako hogaamiyihii tataarka wuxuu amray in la dilo dhammaan dadka magaalada baqdaad waxay ahayd xilligaas magaalooyinka ugu dadka badan caalamka oo dhan uguna ilbaxsan muddo 40 maalin ah oo aanan kala go' lahayn ayay tataarku wadeen gowraca dadka baqdaad tirada dadka lagu xasuuqay baqdaad waxay gaartay 1 milyan oo qof isweydii bal xilligaas oo dadka caalamka oo dhan yaraa magaalo 1 milyan oo qof laga gowracay ciidanka mongoolka cid hor istaagta ayaa la waayay shucuubta caalamka oo dhan tataarku ciddii ay ku duulayaan waxay ugu sii sheekayn jireen inay yihiin nacalad cirka ka soo dhacday jirinna cid hor istaagi karto waxaana daliil u hadalkaas oraah uu yidhi jankiis khaan waxaan nahay ciqaabtii alle maxaad samayseen si alle ciqaab noocan oo kale idinkugu kiinsoo diro haddii aan dib ugu laabano duulaanadii tataarka ee dhulka muslimiinta wuxuu ka soo bilowday dhanka bariga gaar ahaan dowladdii loo yaqaan ee dawla alkhawaarzmiya oo ka talin jirtay dhulka maanta loo yaqaan usbakistan turkmanistan kazakhistan taajikistan qaybo bakistan iyo afghanistan ka mid ah waxay ahayd dowlad dhul ballaaran waxaana caasimad u ahayd orjanta xilligan turkmanistan ayay dhacdaa magaaladaas ciidanka tataarka wuxuu afka saaray dhulka dowladdii muslimkahayd ciidan aad u weyn uu hogaaminayo jankiis khaan dhanka muslimiinta diyaargarow ayay galeen waxaana la diyaariyey ciidankii ka hortagala tataarka waxaana fooda la isku daray bariga webiga siixoon oo hadda loo yaqaano webiga sardaariya dhulka kazakhistan dagaal la isku hilboobay oo 4 maalin qaatay ayaa dhacay goobta muslimiinta waxaa uga dhimatay 20,000 halka tataarkuna ka dhinteen tiro intaas ka badan intaas kadib maxamed al-khawaarzmi hogaamiyaha dowladda wuxuu go'aansaday inuu ciidankiisa dib ugala baxo goobta dagaalka markii uu arkay in tataarku ka tiro badan yihiin tataarku ma istaageen ilaa ay galeen magaalada bukhaara ee dhacda maanta usbakistan ahna magaalada uu ka soo jeedo alimaam albukhaari falal aanan taariikhda hore loogu arag ayay tataarku ka geysteen magaalada bukhaara taariikhyahanka weyn ee ibnu kathiir mar uu ka hadlayay dhacdada bukhaara wuxuu qoray waxay dileen dad tiradooda ilaah keliya og yahay waxay qafaasheen dumarka iyo carruurta waxayna kufsi kula kaceen dumarka horta ehelkooda gabdhaha ayay aabbayaashad hortooda ku kufsadeen intaas kadib tataarku waxay dab qabadsiiyeen bukhaara waxayna gubeen masaajidada madaarista ilaa magaaladu isu beddeshay dambas madow kadib musiibada bukhaara tataarku waxay afka saareen magaalada samarqand oo maanta dhacda usbakistan ciidanka nidaamka dowladda baqdin ayaa gashay taasoo keentay in dadka shacabka muslimiinta isxilqaamaan waxaana ku baxay tataarka dad aanan tababarnayn oo aad u tiro badan tataarku waxay sameeyeen baqacarar dhagarah waa niman tababaran oo ilaa shiina wixii dad joogay soo cunay kadibna dhinac kasta ayay uga imaadeen dadkii ku soo baxay waxayna u geysteen jab laga naxo 70 kun ayay tataarku dhulka dhigeen kadibna magaalada ayay soo galeen waxayna ka geysteen mid la mid ah xasuuqi ay ka geysteen bukhaara samarqanda waa magaalo qani oo xadaarad leh tataarku wixii magaalada yaallay way qaateen dadkii deganaana way xasuuqeen tataarku waxay caan ku ahaayeen inayna ka tegi jirin qof nool meeshii ay qabsadaan si kooban dhulka khuraasaan iyo aasiyada dhexe waxaanan taariikhda lagu arag ayay tataarku ka geysteen dadkii deganaa magaalooyinka marwa tirmid balakh dhammaantood waa la xasuuqay sidoo kale fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar kuna soo biir kanaalka haddii aadan weli ku soo biirin lana soco muuqaaladii u dambeeyey